بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو داوديال مركلة برنامج كأني دعوة الحق دعوة إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلهي سبحانه عز وجل ونوافجي إن اشتاقنا هذه الدعوة waxaan ognahay wax badan aan ku celcelinay maanta caalamka in ay haysato macnaha jaahiliya maadiya ah oo noloshii dhanba qiimo tirtay. waxaa kaloo wax badan aan ku celcelinay ummaddaasi saas maanta u baaba'san dadkay u baxsan lahayd oo badbaadin lahaane oo ummaddii ku nooleed caalamka islaamka u xukumi jiray macnaha ummaddaasina marka haddii caalamkii kale ayay ku dayatay wareer aan caadi ahayn iyo walaahow aan runtii la qiyaasi karin ayay xaaladooda ku sugan tahay halkaana ay ku waysay fursaddii ay basharida u heli lahayd badbaado ku heli lahayd macnahane waxaan jecla insha allahu tacala qadiyadaas inaan caawa iftiinka saarno bal wareerka jiro ee caalamkii loo baxsan lahaa gaar ahaan aada u haysta baxdiinta la eg tahay sidee baana macnaha ku qiyaasi karana ka codsan doctor cabdiraxmaan bal inuu noo daafuro. bismi illaahi raxmaan iraxiim sida doctoorku soo sheegay waxaa weeye caalamka maanta ku nool adduunyada laba u qeybsan yahay caalam aan la garanayn markii la firiyo taariikhda qoran mar ay nuur arkeen hidaayo ay arkeen aan la garanayn caalam risaaladii ugu dambeysay risaalaadka alla soo diraya subxaanahu wa tacaala oo nabi maxamed oo la soo diray nasiib u yeelatay in au dhexdooda ka soo baxo qaata islaamkii awayaalkooda ay qaateen quruun ay ku soo noolaayeen ummad ou dhisay muslimad ah ou hoggaamiyey shareecadiisu ay tahay shareeco ummadeed ummad lagu hago xayaatadeeda lagu hago in badan markii waktigu ku dheeraaday risaaladii ka fogaatay waa tuureen markay tuureen dadkii shalay aan risaalo iyo hidaayo taariikhda qoran mar ugu dambeysay aan soo marin ayaa dareemay dadkan awooddii shalay ay lahaayeen sharaftii ay shalay lahaayeen sacaadadii shalay ay haysteen deganaashadii ay haysteen xooggii ay lahaayeen waxay ku lahaayeen risaaladoodu inay tahay risaaladiina ay fogeeyeen iska tuureen markay ogaadeen ayay waxaa weeye duulaan ku soo qaadeen waxay ku soo qaadeen cadaadis fara badan ay saareen ummaddii shalay risaalada lahayd oo shareecada lahayd oo ayada laga iftiin qaadanayay ayay maaragtay waxaa weeye wax allaale wixii shalay ummad ay ku noqdeen ayay shaki ka geliyeen ummaddii saas ahayd yacni shareecadii oo kaamilka ahayd oo dhammaystirnayd ayaa laga shaki geliyey oo waxaa la yidhi shareeco kaamila ma aha xadaarada lama soco karto yacni lama soco karto horumarka iyo maanta meesha la marayo waa laga dhaadhiciyey akhlaaqdan islaamku lahaa ee fiican waa akhlaaq maaragtay waxa weye rajciya oo dib u dhaca oo dib u socda waa laga dhaadhiciyo way qaateen shareecadani ma astaahisho nolosha inay hogaamiso ayaa laga dhaadhiciyey waa qaateen oo maaragtay waxa weye waa rumeeyeen saas ayay noqdeen yacni waxaa weeye wax allaali wixii sharafay ku lahaayeen shalay ayay maanta ka tageen kuwii wareersana oo waa risaalo ka yacni ay qaateen aan la garanayn ayay waxaa weeye waxay u meeriyeen qaateen kuwii dabagaleen kuwii ayaa maaragtay waxay u noqdeen indhabixin u noqdeen tusaalooyin u noqdeen mujihiin wajaha u noqdeen markay u noqdeen iyagiina way fahmeen kaydkoodii iyo hagardaamadoodii iyo dhagartoodii la fadhiisteen waa kasii fogeeyaan haadaantay usii wadeen haadaan ayay ka tuureen yacni waxaa weeye ummad ahaanteedii way dhuntay wareerkii ayaga haystay mid ka daran ayaa
ummaddii shalay islaam ahayd oo loo cayman lahaa oo dadka indhaha u bixi lahayd oo u furi lahayd ayay waxay ku sugan yihiin wareerkii ummaduhu ku sugnaayeen mid ka daran ayay maanta ku sugan yihiin. lagamana bixi karo, ummaddan ka bixi mayso, bashariyadii ka bixi mayso wareerkaas ay ku jiraan. inay risaaladii alla ay qaataan oo tajrubadeedii la hubo, taariikhdeedii la hubo, ummad dhistay, hogaamisay, ummad maaragtay waxa weye dhan kastaba ummad ka ah, qawi ka ah, yani waxa weye maasha allah aad iyo aad baarak allah fiik. bismi illahi raxmaan raxiim. qaybtaas walaal oo ka hadlay waxaa ku dari lahaa, waxay ka tageen ummaddii wax alla wixii qiyam ahaa iyo mabaadi ahaa oo diintaanu ay xambaarsaneed xaggaa laga dhigay. waxaa laga dhigay sidii walaal sheegay wax oo rajci ku ahoo dib u dhigayaa laga dhigay. waxaa la yiri waxaanaa fiican oo horumarahoo maanta adduunka ah kula socon kartaana qaata. maalan mabaadida lasoo qaatay oo gaalada laga soo qaatay, afkaar algarbiya laga soo qaatay, waxaa kamida dimuqraadiya kamida. dimuqraadiyo ummaddaas waxay u keentay halaag iyo ba oo dhan kasta ka saameeyey. jaanib siyaasiya ka saameeyey, jaanib ijtimaaciya ka saameeyey, noloshii bulshada, jaanibkii dhaqaalaha iyo noloshii iyo iqtisaadkii oo dhanna ka saameeyey. markii muxuu ahaa la yihi dimuqraadiyaha la qaatay, ummaddii waxaa loo sameeyey axzaab. gaaladu marab kasta waxay u saaxiinaysay ummaddan inay ka qaado muqawimaadka ama tiirarka nolosheeda inay ka qaado, jirarka jiritaankeeda inay ka qaado ayay u sacyinaysay. jiritaankeeda waxaa kamida ummad wada jirta oo ishaysata oo walaalo ah oo muxuu ahaa maaragtay wax midaynaya ay jiraan. tiibay ka qaadayo waxaa loo keenay axzaab muxuu ahaa mutanaaxirada oo mukhtalifada oo kulligeed ayadiiba maaragtay isgaadaysa. waxaa loo googooyey qolo qolo iyo qoys qoys iyo qoom qoom ayaa loo kala googooyey, baxaydu ay markaa fusho mabaadi'dii gaalada si fiican ay uga dhex fusho. arrimahaasoo dhan baa hirgalay. akhlaaqiyaadkoodii bay u yimaadeen. akhlaaqiyaadkii islaamka oo wanaagsanaa inta xagga la iska dhigay ayaa la yidhi halkaa kasoo qaata mabaadi'da iyo akhlaaqiyaadka. waxaan ognahay dhaqanka maantay, dhaqamada maantay caalamulislaami meeshii loo yaqaanay shalay looga dhaqmaayo in badan oo kamida in ay yihiin dhaqan oo macnaha maaragtay waxyaabaha xataa xayawaanka qaarkood aanan ka suuragelayn in maaragtay loo gudbay ayaan u jeednaa. waxay maaragtay qaateen dhaqaalihii hadda waad ujeedaan oo maantay muxuu ahaa maaragtay nidaamkii ribowiga ahaa oo halaaga ahaa oo muxuu ahaa naartana lagu mudanayey, adduunkana maaragtay halaag ahaa, aakharana halaag ahaa ayaa nidaam laga dhigtay, nidaam dhaqan dhaqaale laga dhigtay. meeshaas waxaa yimid oo kaleeto in tanxiyati shariica alislaamiya sidii walaal sheegay, sharciga islaamka o dhan halkaa la iska dhigo. meeshii waxaa ka dhashay tasawurka islaamka iyo tiirarkii uu ku taagnaayo oo dhan in la yiri maaragtay kulligeed la macno tiray, in kulligeed la macno siibay. mafaahiimtii islaamka iyo usustii islaamka, diin maxaa la yidhaahdaa, tawxiid maxaa laa ilaha ila allah maxaa la yidhaahdaa, muxuu ahaa maaragtay koonkan yaa ka talinaya, maxaa islaamnimada ku buraysaa, maxayse ku toosay. waxaasoo dhan ayaa xagga laga dhigay. waxaa yimid niman la yidhaha ducaat qasw lfikri ayaa yimid oo yiri war wax dhiba ma laha, shalay waa ku dhaqanteen, horumar waa gaari weyseen, ummaddii waa ka harteen, caalamkii waa ka harteen. maanta caalamka si aad ula qabsataan waa inaad maaragtay waxyaabahan iska dhigtaan horumarka wixii lagu gaaray, sidii inaadna islaam ku tihiinba ood islaam ku noqonaysaan. meeshaasaa waxaa ku dhumay duuduub isku geeyo oo noloshii islaamka iyo tiirarkii ay ku taagneed oo dhan ayaa meel la iska dhigay. ummaddii waxay noqotay ummad maran oo wax ka maran. meeshaasaa laga kala qaata. xawla walaa quwata illa billah. bismi illaahi raxmaani raxiim. anoo meeshaa kasii wadayo, ummaddii markii la suureeyo halkaa tagtay, waxaa jira inay u kaceen waxa la yidhaahda baraaruga islaamka ama saxwa alislaamiya la yidhaahdo, oo khatartii inta dareemay soo kacay. bal ummaddii mar labaad islaamkeedii ha lagu celiyo
walaahowga iyo meehanawgaas ay ku jiraan ha laga soo saaro ee waddadii caddeedo islaamka ha lagu celiyo ulajeedadooda uu ahaa. laakiin waxaa iyadana nasiib darro noqotay in badan oo kamid ah baraarugii islaamka iyo saxwadii islaamka in aysan u raacin isbeddelkaas ay doonayeen habkii manhajka ilaahay ugu talagalay oo ambiyada ilaahay la faray, rasuulka ugu dambeysay salawaatu ullahi wasalaamu si cad loo faray. waxyaalaha ugu caansan oo inay jidkaas ka leexdeen sabab ugu noqday waxaa kamid ah, waxay u maleeyeen ummaddan islaamka sheegatay oo wadamadii islaamka uu xukumi jiray hadda ku nool inay weli islaamkoodii haystaan sidii uu ugu dhaqan yahay, waxyaala yar yar ahoo ka khaldamay oo in loo tootoosiyo ay u baahan yihiin, bas inay yihiin waxa ka maqan ay sidoodaba islaamkii dad mathilayo islaamkooda u dhaqan yahay uu yahay. cudurka baaxadiisii ma fahmin macna cudurka baaxadiisii lama fahmin, isbeddelka dhacay meesha la maraa lama fahmin, inta uu qotadiisa sii jira. waxaa dhacday marka tan labaadoo mushkilada ay kasii dhacday, ummadda maadaama saas ay u rumaysteen, markay u yeeleen shareecada islaamka in isku dhaqaa la rabaa, tadbiiqi shareeca islaamiya ay ku naadiyeen, waxay arrintii noqotay maadaama ummadda muslim u toosan tahay, shareecada ay dalbanayaan oo in lagu dabaqa ay rabaan maxay tahay, dhowr jaanib un meeloodoo xoogaa waa la khalday, ay is yidhaahdeen intaas bas in laga saxo, laakiin noloshooda iyo habkooda kale sidooda loo deeyo. oo maxaa dhacay marka? waxaa dhacday in mujtamacii oo fasaadsan oo kulli dhinac kastaba eber ka ahoo mashaakilka oo ku dhex jiro wax la xalli kara aynan ahayn, oo weliba mashaakilkaas waxa keenay ay tahay ka fogaashadii ay diinta ka fogaadeen, ayaa waxaa la damcay in asaga asal laga dhiga mujtamaca siduu u yahay, dhaqankiisa siduu u yahay, diintii ilaahay marka inay waafaqda dhaqankooda, oo shay kastoo ay ku dhaqmayeen qiil loo raadiyo oo la yidhaahdo tana kulli lagama taaba karee maxaa bal diinta inay meelha looga raadiyo wixii soomaalida dhihi jirtay iyo qiilday ma garatay, oo ah diintii ilaahay waxaa laga dhigay mid mujtamacan fasaadsan in asiga ay daba orodo oo wixeeda ay wixiisa ay u saxdo oo maaragtay ay iyada noqoto qaadim. ilaahay diintiisa intaa waa ka weyn tahay, ilaahay diintiisa sideedaba iyadaa la raba inay hogaamiso ummadda khalad ka dham way ku jirto kulligeed kasoo baxa ee kaaliya isu dhiiba ilaahay diintiisa in la yidhaahdo ayay ahayd. ama si kale haddaan u dhahno dadkan caqiidadii xataa waxyaalihii asalka ahay oo caqiidadii ay ka fasaaday, shareecadii ilaahay aan lagu dhaqmayno, shareecadii laga tago dasaatiir kale iyo qawaaniin kale iyo wax heerar kale la qaatay, kulligood in la yidhaahdo war islaamkii ka beerteene ku soo noqdo, dib usoo gala, caqiidadiisa ka bilaabo. oo caqiidada maxaa ugu saldhigsan laa ilaha illa lah, ashhadu an laa ilaha illa darteeda. oo maxay tahay ashhadu an laa ilaha illa, macnaheeda waxa weeye ilaah baan ilaah ka dhiganay, asagaan ka dambaynaynaa, addoomaan u nahay, noloshayna maanta wixii ka dambeeya taladeeda waxba kuma lihin, alla ayaana hogaaminaa. waana ka tala diidnay qof kastoo bani aadam aho mabdac kale ama dastuur kale ama qaanuun kale ama sharci kale noo keenana diidnay. ilan laa ilaaha marka laleeyahay ilaah kale ma jiro, ku kalon ka tala qaadanayna ma jira, waayo macnaheed ma garatay. saas arrintii ahayd oo la rabay dadkan in la yaraha war asalkiiaba idinka hadlaysana min jadiid asalka usoo noqdo, ayaa waxaa laga dhigay wax yar baa idinka hadlaysana wixiina waa idin qiil raadinaynaa, tiina idin toosinaynaa. markaan warka soo koobno, cudurkii meeshii xarakaadkii islaamka oo ayaga laga sugayey inay walaahowgaa la galay iyo tiihaa la galay inay ummadda kasoo bixiyaan, inay jidkii saxda ahayd mari waayaan, laba asal oo khaldantay oo lagu baraarugin a keentay. markaan warka soo koobno, asalka koobaad oo ah kii aan hore u sheegno oo ah cudurka baaxadiisa intuu la eg yahay oo aan la fahmin, sidaa darteeda dawadii lasoo bandhigi lahay way halaw maadaama cudurkiiba qotadiisii aan la fahmin, waxba saameyn yeelan mayso. waxba saameyn yeelan mayso. taa waa mid. midda labaadna waxa weeye arrimaha siday u kala muhiimsan yihiin in la kala gara waayo, maxaa in la horumariya ay tahay. dadkan alla ku xirid inay alla ka dambeeyaan ay waxa kaloo dhan kasoo faraxashaan, asalka saasay ahayd. laakiin in la yidhaahdo hadda meelo qaarkeed oo xadiiskaasaa kusoo arooray ama sunada saasay aheed oo aan la khilaafe, taa naftii oo dhan la agdhigo diintii iyo dacwadii laga rabayba intaas ay noqoto,
hadda idana waa macno waxaa la fahmi waayey arrimaha sidii u kala muhiimsan ما شاء yihiin الله oo ما la شاء fahmi الله waayey ku ما timi شاء الله جزاك الله خيرا يا دي مارت intaas runtii walaalaha ay soo caddeeyeen waxaan u raacin lahaa macnaha yani sidii walaalaha ay soo caddeeyeenba islaamka horta nuxurkiisii maadaama uu dhumay waajibka dadka ducaaddaa saaran waxaa weeye dadkii mar labaad say ugu soo celin lahaayeen islaamkii saxa ahaa oo ilaahay kitaabkiisa subxaana watacaala iyo sunnadii nebiga ku yimid hadalkii saxa ahaa oo tawxiidkaasi uu xambaarsanaa waadixa ah oo ah in ilaahay subxaana watacaala la ictiqaadiyo uluhiyadiisa iyo allanimadiisa inuu waaxid yahay in asaga laga dambeeyo oo nolosha maamulkeeda sida asagu ilaahay subxaana watacaala uu u rabo oo ilaahay u soo dejiyey in asaga subxaana watacaala looga dambeeyo la adeeco oo nolosha hareeraheeda oo dhan ilaahay loo hogaamiyo subxaana watacaala cibaadada ama shacaa'irta wuxuu islaamka u yaqaana ilaahay keliya laga qaato subxana watacaala waajibka marka ducaadda saaran waxaa weeye runtii oo intaa aan ku dari lahaa walaha ay soo sheegeen waxyaalaha la raba dadka in loo caddeeyo waxaa ka mid ah dadkan dadka wax u dejinahaya islaamka inuu u yaqaano dawaaqiid kuwaasna waa shirki iyo kufri iyo gaalnimo weeye dadka ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn u dejinaya macnaha la rabo dadka ducaadaha oo ilaahay subxana watacaala xaqa uu fahamsiiyey inay dadka u caddeeyaan waxaa ka mid a inay ku kufriyaan dawaaqiidda ilaahayna subxaana watacaala isagoo macnahaas noo caddaynaya wuxuu yidhi alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk wma unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila الطaaguut waqad umiruu an yakfiruu bih wayuriidu الshayطaanu an yudilahum dalaalan baciida kuwa sheeganaya lafdigaasa ilahay ka cabira subxana watacaala sheegasho maahan islaamku wuxuu rabaa sida alla u raba in loogu dhaqmo subxaana watacaala maahane inaad iska sheegato noloshaadana meesha aragta la aada maahan islaamku waxaa weeye ilaahay xaggiisa wixii ka yimid subxaana watacaala oo rasuulkeena lagu soo dejiyey noloshaada inaad ku maamusho ma garatay dadka marka kuu jidaynaya waxyaala aan islaamkii uusan soo dejin oo ilahay xaggiisa aan ka imaanna waa dawaaqiid wey kuwa in lagu kufriyaa la rabaa ilaahay subxaana watacaala saasuuna leeyahay macnahaas inaan fahamnaana la rabaa kuwaas ilaahay subxaana watacala wuxuu leeyahay waa awliyaa shayطaan ayaga waxay soo waxyoonaya kuwa haddaad raacdaan mushrikiin baad noqonaysa ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahy subxana watacaala walaa ta'kuluu mima lam yadkar ismu llahi calayh wainahu lafisqun waina shayaaiina layuuxuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun kuwa dadka u jidaynaya waxaan ilaahay subxaana watacaala xaggiisa aan ka imaanin waa awliyaau shayطaan wey haddaad kuwaas raacdaanna mushrikiin baad noqonaysaa buu ilahay subxana wataala waa nas ilaahay xaggiisa ka yimid subxana watacaala marka dadka ducaadda waxaa la rabaa inay dadka u sheegaan oo fahamsiiyaan dadkan wax u dejinayaa shaydaan baa ayagana wax u soo waxyooday shaydaan baa wax u sheegay shaydaan baa warkan u meeriyey marka waxaa la rabaa inay ka baxaan oo ku kufriyaan ogaadaanna oo dadkan u caddeeyaan inay waxaasi shirki yihiin ما شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم aad iyo aad bay dakaatirada iyo culammadu u caddeeyeen xaqiiqada taallo waa wax runtii aad iyo aad looga noxo ma arkaysaa ummad weligoodba aan taariikhda la xasuusan yahay wanaag aan lagu arkin hogaanka kuwa qabtaan adigoo taariikh lahaa oo ilaahay subxaanahu caza wajalla awowayaashaadii iyo meeshaa ka soo jeedo wax qurux badan ahaayeen sharci wanaagsan iyo caqiido iyo diin isku dheeli tiran oo bini aadankon inaa ku badbaadisa loogu talagalay meel la iska dhigo kuwaa la raaco waxaa nasiib darraday ka mid tahay ficlan aad iyo aad ma arkaysa haddii markaa isdayacdo adigu meel daleela aad isdhigto waxaa fududaanayso kii aan wanaagga kula rabin inuu si fiican kuu legdo ma arkaysa u dibirta kula helo marka ummaddan marka iyadoo isdayacday ayaa waxaa ugu darsamay in cadowgana u tashtay oo isna geed kusoo xirtay ma arkaysa sida hadda dakaatirada ay sheegeen jazakum allahu khayran haddii geed lagu xirtayna hadde waxa weeye wax walbo marka waa la dhaamay waxaa aragteenu ka hadashayn baana ka soo baxay marka aad iyo aad bay ma arkaysaa u xanuun badan tahay waxaase nabarka uga xanuun badan uu yahay markii baraarug lays yiri oo la soo kacay lays yiri haddana in waddadii khaldantay haddana macnaha ma garatay waddadii khaldantay sababtay ahaataba ma arkaysaa waana wax u baahan daraasi in lagu sameeyo aada loo fiiriyo meel cidlaa iska xagxagan mayno xaqiiqo jirta weeye intaasoo sano ayaa warku iyo doodu ay socotay meesha maanta la marayana aad bay u muuqataa saxwadii ama baraarugii islaamiga ee kacay gibidhaclaynta ku dhacday iyo jahwareerka qabsaday iyo wareerka ummadda ku dhacay si ugu saamoobayna
aad iyo aad u muuqda weeye ilaa hadda maanta ummaddiiba xataa yacni laga qoosisiiyey u noqosho islaam dambe macnaa laga qoosisiiyey maxaana keenay gebidhaclaynta iyo jahwareerka dadkii saxwada waday ku dhacay ma arkaysaa nasiib daraday ka mid tahay laakiin waxaan marna la horeynin in xaqiiqada saytaan u waajahno nafteennana ku soo jeedino dadka ducaadda ah ee diinta ilaahay subxaanahu watacaala waajibka ka saaran yahayna aan u tilmaano xaqiiqada si walbay u qaraar tahay waa lama horaan bukaankane daawada qaraar ama cirbadda xanuunka leh si walba u dhibsado waxaa la isugu tegay caafimaadku wuxuu ku jiraa in daawada qaraar la qaato oo cirbadda xanuunkale la qaato waxaa dadka xanuujinaya waa khaldantiin in la yidhaahdo waxaa dadka la qaraar dhabbihaa ka leexateen laakiin la hori maayo haddii dhabbaha laga leexday madax salaax aan kuu madax salaaxo dhabbaha uguma taagnaanaysid macnaha muxuu ahay ama aan kuu been guuroon ku dhaho intaasa haystaane waddada ku heli maysid marka runtii waxaa habboon yani jidka saxda in la qaato oo ilaahayna looga cabso subxaana caza wajalla marka runtii nasiib daradaas aad ay u weyn tahay waxaan is leeyahay daawadayaal inaad nala arkaysaan weli nasiib kala inoo furan kitaabka ilaahay oo kaamilah inoo yaallo oo aan dhagarqabayaashu weli gacantooda aysan gaarin sunnada nebiga sal ly slam xaafid maxfuud ah oo sideeda u xifdisanna wayna dhex taallaa oo dhagarqabayaashu weli aanay gacantooda gaarin si kastoo macnahooda inay bedela isku dayaan iyo in weli ay taagan tahay xaqiiqadaha kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal ly slam dadka dhoon buu u furan yahay cid gaara uma xayirno sida nimankii axbaarta yuhuudda ay diintooda ilaahay ka yeesheen fursadaas aanu ka faa'iidaysanno oo walahowga aan ka baxno meehanawga iyo jahwareerka iyo lunsanaanta aan ku jirno iyo meesha maanta aan naallo waxaana geeyey ilahay inuu ka furno subxaana caza wajalla ilaahay loo soo noqdane mooye si kaloo xal lagu gaaray ma laha intaasaan caawa ku joojina insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryay inu waafajiyo intaa in ka dheer aan sii tilmaano cuduradii lasii arko si ballacalla dad un xanuunka intay gartaan daawada qaata loo helo ilaha idinkiis asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب